السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمها شرفتا يا كرامة مدن أدبان إني سلامينا وقت وعاني نور القروح بدن بان إني رجينا يا كسور دوادا كليب كان يا كنال كينا عافيمات كي دكتورك عافيمات كغويسكا حنو سوق قادنا ما تاما كليب كان إنو كويغي دونا ديرما بلاك سبوت وحلا يراهدون ديرما بلاك سبوت ودبعها مدو ku samaysma inta u dhow indhaha dabanada iyo guud ahaanba wajiga laakiin u badan intaas indhaha way ku hareeraysan yihiin iyo dabanada dibcaha madoobi inta badan hadii aan qofka wajigiisa aanu ka habayn waxay ku sameyn kartaa haaro ama boogo haddaba qaabka si dabeeciga aad uga daweynayso ama aad uga saarayso adoo gurigaaga joogaynu doonaynaa inaynu eegno green limonta ama green grapefruit green lindanaanta ayaad soo qaadanaysaa xilliyada galabtii ama maqribkii ayaad waxaad marinaysaa eeriyada ama wajiga ayaad caadi u marinaysaa adigoo ku xoqaya aan aadna ugu xoqaynin intaad kala jeexdo ayuunbaa caadi u marin doontaa haddii ilaahay ka dhigo kadib waxaad markaad sii seexanaysa habeenkii ayaad waxaad sii marsanaysaa banaanaha ama muuska haragiisa ama diirkiisa intaad kala jeexdo qaybta hoose ayaad marinaysaa haddaynu ku soo celino mar labaad liindhanaan nooca greenka ma aha nooca inta badan yalowga way kala macdan fiican yihiin mineraliska iyo faytamiinada ay kala wadaana totally way kala duwantay qudaartu xusuusnow marxalado kala duwan bay martaa marxaladaha ay marayso macdanaha iyo faytamiinada qaar baa ka dhinta qaarna marba ka dambeeya ayay u siyaadaan tusaale ahaan oo kale muuska noocaad isticmaalaysaa ma aha nooca qeedhin mana aha nooca inta badan xataa bislaaday nooca aadka u bislaaday ee markaa la yiraahdo nooca raybka ee aadka u bislaaday ayaad isticmaali doontaa haddii ilaahay ka dhigo kadib liindhanaanta ayaad kala jeexaysaa caadi baad wajiga ugu xoqaysaa oo aad u marinaysaa liindhanaanka jeexeedii ayaa eeriyada ay markaa boogahaas iyo black spotkaasu ay kaaga yaalaan baad marinaysaa habeenkii qofku markuu sii seexanayo ayaa wuxuu sii marsan doonaa inuu muuska intuu kala jeexo qaybta hoose ee markaa ay ku taalo labeenta ama markaa qoyaan kale ayuu marinaya waa wax dabeeciya chemicals markaas jirkii waxyeelayana maaha muddo 7 cisho ama maalinta koowaadba intaanad horta marin dhibcuhu sida ay yihiin iyo madowga meesha ku yaala inaad sawirto ayaa ku muhiim ama qof aad tiraahdo eeg oo uu ku eego si markaa isbedelka aad u dareento ama aad uga falceliso laga yaabaa aad baan u dareensanahay bulsho badan oo dadkeena ka midi inay si dabeeciya iskaga isticmaalaan almost dadku aad bay ugu baraarugsan yihiin inay liindhanaantu u fiican tahay maqaarka isla markaas ay u wanaagsan tahay inay waxyaabaha inta badan jeermiska ee markaa maqaarka dul fuula muuskana aad baan sidoo kale aan jeclahay inay ugu baraarugsan yihiin in badanna waynu ka hadalnay meelo fara badanna waa lagaga hadlaa waa qudaarta keliya ee ugu fiican ee loo isticmaalo maqaarka labadana waxaa laga wada helaa vitamin C laakiin waxa uu aad ugu badan yahay banaanaha liinta noocyadeeda kala duwan waa uu ku badan yahay oo iyadana waa uu ku jiraa saalaajigeen madowgaas iyo waxyaabaha inta badan finankaas iyo waxa wajiga kaga yaala qofka almost si dabeeciya ayuu uga remove garoobayaan oo aan dhib iyo dhibaato lahayn waxaynu aad ugu talinaynaa inay waxyaabaha dabeeciga dadkeenu ay isticmaalaan laakiin inta badan waxyaabaha chemicalska ahi waxa ay ku abuuraan maqaarka dermiska la yiraahdo ee ugu sareeya ama skinka inay ka qaadaan difaaca isla markaas sida qofku u xoqayo inuu maqaarka saddex baa loo kala qaybiyaa qaybta sare oo dhan ay dhamaato oo markaa chemicalkaas uu dhameeyo sidoo u jarayo
ama uu xoojinayo hadhowto qofku aanu cadceedda xamili karin inuu kansar khatar ugu jiro ku dhaca markaa wejiga iyo maqaarka oo dhan skin kansar inuu khatar u galo inuu dabka aanu xamili karin inuu dhibaatooyin fara badan ay ku absadaan quruxda waxyaabaha dabiiciga qofku inuu ismariyo waa mid caafimaad ahaan aynu soo dhaweynayno weliba kuwan waa mid dux ah oo maqaarkii inuu ku xoogaysto oo milaniintii ay gasho oo ifo oo nuuro maahaane wax dhibaato ah oo kaa soo gaaraya ma jirto waana home remade gurigaaga iyo bay'adaada joogto ayaad ka helaysaa guud ahaan geyga Soomaalida labadaniba waa ka caan waana available oo meel kasta waa ay yaalaan intaas ayaynu ku soo ururinaynaa ama kaga tagaynaa klibkeeni ku saabsanaa qaabka ugu fudud ee looga saari karo barabaraha wejiga madmadow iyo haarta indhaha ku samaysanta waliba inta badan dadka arrimahaas ku dhacan waa dadka xasaasiyadda leh ama allergy-ga leh ee inta badan marka allergy-gu ku dhaco indhuhu agtooda ay madoobaato wejiguna meelahaas ay yara madoobaato intaas ayay isticmaali doonaan intaas aananu idinku dhaafaynaa oo aanu kaga tegaynaa fadlan la sii wadaago u sii sheer gareeya bulshadeena kale aynu aadka u jecel lahay inay nagu soo biraan idinkana waxaanu idin rajaynaynaa nolol wacan caafimaad taama iyo mustaqbal ifayo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.